Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan. Halkan waa barta YouTube-ka aad maalin walba nagala socotaan. Maanta waxaan wararka idinkugu haynaa ishaag wararka hadda kasoo kordhaya dalka Kenya, taasoo doorasho aad u adag ay ku dhex mareyso William Ruto iyo madaxweynaha ninka doonaya asagana oo lagu magacaabo Raila Odinga, taasoo la leeyahay dadka boqolkiiba 60 codadkooda waa la tiriyey, laakiin labada musharax aad ay isugu dhow yihiin, inkastoo meelo fara badan oo aad iyo aad maaragtay isu soo tarayaan oo marmar ka dambe soo kordhayso qaabka loo codbixiyey, ayadoo weli hadda aan la kala saarin, laakiin ay aad isugu dhow yihiin, farqi weyn oo la sheegi karo. Meelaha qaar Raila Odinga ayaa horeeya, meelaha qaarna Ruto ayaa horeeya, meelaha qaar waa iska 50-50. Marka doorashadu way socotaa weli dhinac uma dhicin natiijada, sababtoo ah tirintii codadka ayaa la wadaa, goobo fara badan ayaa la tirinayaa. Dadka qaarna waxay saadalinayaan in William Ruto oo sanadkan uu cadar aad u weyn u dhigayo, maadaama uu aad ugu dhow yahay ninka la yidhaha musharaxa oo saaxiibkana ay yihiin saaxiibkiisii hore ee wadanka Kenya madaxweynaha ka ah ee Uhuru Kenyatta, ninka lagu magacaabo Raila Odinga. Marka taas waxaa la leeyahay aad iyo aad isku dhow yihiin. Doorashaduna waa isdaba jeedaysaa, inkastoo meelaha qaar buuq iyo fowdo ay hareysay, laakiin wax laga gudbay ayay noqotay oo codadkii sidii loo rabay waa loo diiwaangeliyey. Doorashaduna meel xasaasi ayay mareysaa. Dad fara badan waxay leeyihiin haddii uu maanta Raila Odinga ku guuleysto, dad aad u badan oo taageersan Raila Odinga ayaa jiro, laakiin waxaa leeyahay haddii uu Raila Odinga ku guuleysto, iyada waxay ka dhigan tahay Uhuru Kenyatta oo carrada weli ku jiro, taasoo saaxiib dhow uu yahay, welina uu la socdo ninka la yidhaha Raila Odinga. Dadka qaarna waxay leeyihiin William Ruto haddii uu guuleysto, isagana waxawaaye waa nin aad u adag oo nin naxariis badan ma aha. Haddii uu ku guuleystana cadaadis weyn iyo dagaal wuxuu ku qaadi doonaa musharaxiinta kale, qaabkii oo asaga dhulka u geli lahaa, sababtoo nin ciil qabo waaye oo nin loo tashto waaye. Meelo fara badan looga tashtay, guruweysi ayaa lagu sameeyey. Marka hore asagaa saaxiib la ahayo Ruto iyo waxaa saaxiib ahayo Uhuru, ka dambana waxaa saaxiib noqday Raila iyo Uhuru. Marka ninka waa la siyaasadeeyey, meel cilaa la dhigay, hadda keligiis waaye. Waxaa la socda keliya ninka Soomaaliga ee Farax Macalin oo ishaga aad taqaanaan. Ninka Soomaaliga waxaa la socda Aadan Bare Ducaale, inta kale way ka baxeen liiskiisa. Marka UDA aad ayay u dadaaleysaa la leeyahay sanadkan, lama oga inay ku guuleysan doonaan, laakiin qarka ayay u saaran yihiin inay tartanka isku muujiyaan, sababtoo way daba taagan yihiin, meel walba cagta ay u saarayaan. Tiriska aad u socdaa, waxaana la leeyahay wadanka Kenya doorashooyinkii hore isqabqabsi, isdagaal, muran, musuqmaasuq, dhibaato fara badan ayaa hareysay, waataa marar fara badan la sheegay. Mar walbana waxaa la dhihi jiray doorashada Kenya meel xun ayay ku socotaa oo aad iyo aad ishag la isku eedeynaya, sababtoo marba mar ka dambeysa waxaa la lahayay corruption ayaa dhacay oo codada lagu shubtay oo ninbaa gacan laga goostay oo maxaa la baaswooda la xaday oo ishag niman fara badan Jaloba ninkii oo asagana ka mid ahaa dadka doorashada, waxaa la lahay Uhuru Kenyatta Gabriel Madariin oo qabaa. Marka waxyaabo fara badan la isdhex mari jiray. Hadda laakiin meesha Uhuru inkastoo oo taageersan yahay Raila Odinga, haddana asaga meesha kuma jiro oo ka tegey. Soomaaliya iyo wadamo kale oo fara badan oo doorashooyin ka dhacday, corruption lagama sheego, sababtoo baarlamaani waaye. Baarlamaanigana uu ka duwan yahay maxaa la lahaa wadamada kale ee codbixiyaasha caadiga ay codbixinayaan, sababtoo Soomaaliya lama dhihi karo corruption waaye, sababtoo 375 xildhibaan 325 xildhibaan ay wax dooranaysay, taasana codadka lagu kala baxay si caadi loo tiriyey, wax muran la-aan ayay ahayd. Laakiin tan waa codkana waa la kala gedisan karaa. Dad fara badan waxay leeyihiin codka aad iyo aad ayaa loo gedistaa wadanka Kenya. Corruptionka Afrika ka jira ayayna ka mid tahay, iyadoo la leeyahay looma badinayo inay doorasho nadiifa dhacdo oo qofkii codkiisa helay si nadiifa codkiisa uu ku helo usoo baxayo ma jirto. Inkastoo kormeerayaal caalami ay joogaan, xataa waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa kormeerayaasha iyo dadka cadaanka dibadaha ka yimid iyo Afrikaanka iyo IGAD wax ka socdo dhanba qarashaad iyo dhaqaalo fara badan ayaa ku baxay. Ayaga naftikooda laaluus ka qaadanaya, iska aamusayo, sababtoo nin lacag la siiyo la iskaga aamuso. Waxaa gedi hadaa gedi la dhaho gedinaya, sababtoo lacagta u daran adduunka waxaa daacadnimada ku yaraatay. Dad fara badanna waxay leeyihiin sanadkan Raila Odinga hadduu madaxweyne noqdo, Uhuru Kenyattana hadaha gadaashiisa ka maamulaa, waa sheekadu isla meeshaada joog, waa jugjug meeshaada joog. Wadanka waxaa la ogyahay 10 sano oo Uhuru Kenyatta maamulayay, baahi iyo abaar iyo dhaqaale yari aad u baahsan ayaa soo wajahday. Waa xasuusanaa dhibkii ka dhacay, inkastoo hadda aniga wadanka Kenya aan ka maqanahay oo wadan kale Soomaaliya aan ku maqanahay, waxaa leeyahay aad iyo aad dhaqaalihiisa hoos u dhacay muddadii faraha badnaad isheeg oo maamulayay, inkastoo inteeda badan aan joogay. Hadda laakiin waxaa leeyahay waa dhaqaalaha hadduu kusoo laabto, weli dhaqaale yaradu way sii jiraysaa. Rutona waxaa leeyahay nin fiican maaha naftikiisa, oo waa nin dad ka beegsado oo dadka aad u beegsado oo dadka assassination iyo waxba ku sameeyo, aad macnaha dadka u dhibaatay, oo qofka hadduu rabo iskala baxaayo gurigiisa ku jiro hal mar la weynaayo qofka. Marka wax hadda la dhihi karo qofkaasaa fiican
oo waddankaas maamuli karo ama xilkaas maamuli karo ma jiro oo iska yaryahay. Marka haddii oo taas aan ka gudubno doorashooyinka dalka Kenya iyo wixii kasoo kordho dib ayaan kasoo sheegi doonaa. Mar ka dambeysana codadka way soo tarayaan. Guusha iyo meesha ku dambeysana YouTube-kana dib ayaan kasoo gelin doonaa. Waxaan u gudbaynaa dhankaas iyo Soomaaliya iyo Itoobiya oo xiriirkooda aad u xumaaday. Dadku waxay isweydiinayaan in Itoobiya sababta ay xiriirka ula sameysatay maamul goboleedyada ugana weecanayso dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. taas ay dadka isweydiinayaan. Waxaa leeyahay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ayada naftigeeda daacad kama aha dhanka Itoobiya wayna ka leexatay oo Masar ayay saaxiib la yeelatay. Dowladda Itoobiyana sababta u xanaaqsantahay waa midaasi, sababtoo ah waxay leeyihiin dhibaato ayay halkaas kasoo kordhin kartaa. Dowladda Itoobiyana waxay leedahay waan kasoo horjeednaa dhaqanka dowladda Soomaaliya ee wado oo Masar ay kula saaxiibtay. Marka way ka wareegsatay oo dhankaas xanaaq ayaa ka jiro. Marka waxay bilaabeen in ciidamada Itoobiya la soo geliyo Soomaaliya gudaheeda. Waxay kala bilaabeen maamul goboleed inay xiriir la sameystaan ee dhahan ugu dambeyn maamul goboleedyada xiriir la sameysanay xagga amniga iskaashiga caalamiga ayaan sameysanaynaa. Ciidamadeena gudaha Itoobiya waa kasoo baxayaan oo Soomaaliya soo gaarayaan. Howlgal iyo saaxiibtinimo ayaan sameynaynaa. Marka Itoobiya waa wax hore loogu yaqaanay. Dadka siyaasiyiinta oo siyaasadda falanqeeyeen waxay leeyihiin Itoobiya hore u sameyn jirtay faragelinta markii madaxda maamulkaasi waddankaas joogo. Soomaaliya kale madaxweyne markay isfahmi waayaan waxay sameynayaan inay meel kale u qaadaan oo maamul goboleedyada la saaxiibaan oo ay kusoo diraan oo ay dhahaan halkaas kaashanaynaa. Laftigaran waxaan xasuusanaa waa tii Baydhabo diyaarad looga qaaday muddo 3 maalin oo meelahaas ku sugnaa. Markii dambe dowlad deegaanka la geeyey oo Jigjiga iyo meelahaas uu tagay. Waxaas oo dhan warwareegaas oo dhan iyo danayntaas iyo qiimeyntaas ma heli jirin laftigaran waagi Maxamed Abdullaahi Farmaajo jooga ma heli jirin. Laakiin hadda waxaa loo buunbuuninaya waxaa waaye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu xumeynaa lagu jujuqeynaa. Waxaa leeyahay si uu uga xanaaqo oo markaas kadibna oo war aniga waa ogolahay wada hadale maamul goboleedyada laga leexdo. Marka Soomaaliya wax maamul goboleedyada loogu sameeyo waa in dhibaato ay ka dhacdo. Soomaaliya aysan isfahmin, isku group noqonin, isku dhinac u soconin oo mid walba dhinaciisa oo u socdo. Hadda waxaa leeyahay 4 maamul goboleed waxay toos ugu xirmeen Itoobiya. Waxaana ka mid ah Puntland, waxaa kaloo ka mid ah ayagana Galmudug, waxaa kaloo ka mid ah Hiiraan iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland weliba. Marka waaba maxaa la shantooda waxay toos ugu xiran yihiin leeyahay dowladda Itoobiya. Nin walba ishaag dan gaar ah iyo war gooni ah u sheegaysaa. Xataa dadka qaar waxay leeyihiin dagaal ka dhacay xuduudda Itoobiya iyo oo Soomaalidu dowlad deegaanka Soomaalida dagaal ka dhacay waxaa mas'uul ka ah dowladda Itoobiya. Dan ayay ka leedahay waxaana la rabtaa inay burburiso dowlad deegaanka Mustafa Cagjar inay fashiliso meesha asaga ay ka bedesho qof kale ay geyso si dhibaatada u sii badato. Marka dhibaatada waxaa la leeyahay waxaa ka dambeeya Itoobiya. Warar fara badan la isla dhexmaraa laakiin wanaag kama socdo. Itoobiya waa ognahay inay Soomaaliya ciil fara badan u qabto. Dowladda Soomaaliyana aysan dan ka lahayn. Marka waxaa raba hadda ka samaysan waayo sida aniga rabo hadda yeeli weyso annagoo ka soo horjeesanaa. Waa wax weligeed dhici jiray faragelinta dowladaha dariska ku hayaan Soomaaliyana waa naqaanaa. Waa wax iska dhici jiray mar walba marka dambe iska dhici jiray. Waxaa la leeyahay marka Xasan Sheekh Maxamuud hadda wuxuu ku mashquulsan yahay danihiisa kale Uganda iyo meelahaas ku mashquulsan yahay. Safarkiisa 8 ayuu u baxay. Naftigiisa waa nin saldhigta weli ma ahino waa nin isha kacdoon ku jiro sababtoo safaradiisa badato. Maalinba inta ka deg maalinta kale inta ka deg maalinta kale inta ka deg. Marka asaga wuxuu ku mashquulsan yahay qaabkii oo dowladnimadiisa u saldhiga lahayd. Dowladnimadiisana weli ma saldhiganin. Waa ogaan doonaa wixii kasoo kordho. Xasan Maxamuud waxaa u habboonaan lahayd inuu iska taxadaro dowladaha dariska dhibaatada ay ku hayaan inuu go'aan ka gaaro bayaan cadna oo kasoo saaro. Haddii uu dhaho aniga ciidamada Itoobiya dadkaas maamul goboleed xiriirka waxba kalama socono. Dowladda Soomaaliya waxaysan ogeyn ma dhaqaaqi karaan hadduu dhaho xataa naftigeeda waa karti. Laakiin nin hadda hadalkaas u soo jeeday arrintaas diyaar u ah ma ahan. Marka waa ku mahadsantihiin barnaamijkeena la socodkeena aad la socoteen wixii kusoo kordha doorashada Kenya iyo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo dhibaato ka jirto dib ayaan kaga soo sheegi doonaa. Waana ku mahadsantihiin la socodkeena barnaamijkan tan iyo kulanteena dambe oo xiiso leh sidaas iyo nabadgelyo.